السلام عليكم ولا سودو إن شاء الله تعالى ما توحي نقادونا عشرة تضباط إنه كوبرنيني لغة الجافا سكريبت ما تي حين بردونا هدو على يدمو arrays وحين سلا فهم دونا حيتا arrays sababta loo isticmaalo sida wax loogu daro sida wax looga dhimo sida qiimo cusub loogu soo daro frontiga sida qiimo hore u jiro loogu saaro frontiga sida qiimo cusub loogu soo daro lastiga sida qiimo lastig ku jiro loogu saaro dhammaan wax kasta uu quseeyo array maanta ayaynu baran doonaa videogan haddii aad dhamaysatid waxaan kaa ballan qaadan doonaa inaad concept buuxo ka heli doontid waxay tahay array marka horeeto waa maxay array haddii maqashid waa special variable which can hold more than one value waa variable qaas ah kaasoo inoo keeni doono wax ka badan hal value tusaale ahaan hore waxaynu usoo baranay variable inaynu ku keensan karno hal qiimo keliya balse haddii aan u baahannahay wax ka badan hal qiimo waxaanu isticmaali doonaa inaynu ku keydino array sidee loo abuuro array waxaan dhihi doonaa constant ama let ama var dib array name waxaanu furi doonaa calaamadahan kadib dhexda waxaynu gashi doonaa qiimahaaynu u baahannahay maxay tahay sababta aynu isticmaalin array tusaale ahaan waxaan rabaa inaan keydiyo saddex baabuur variable hore waxaynu soo baranay keliyana lagu keydin karo hal qiimo waxaan dhihi doonaa car1 sab car2 volva iyo car3 mw variableadan gaariyaashan waxaynu ku keydinay saddex variable oo kala duwan ma awoodin inaan ku keydino hal variable balse haddii aynu u baahanahay inaan ku keydino waa inaan ka guurno wax lagu magacaabo variableka caadiga ah inuu guurno array tusaalahaan waxaynu ku keydin karnaa sab alpha bmw waxaynu ku keydinay hal array oo lagu magacaabo caris sababtaan u isticmaalayna waa taasaa waxaan isla arki doonaa cashirka baraatikadiisa marka horeeto sidee loo abuuraa array waxaan dhihi doonaa greeting array waxaan dhihi doonaa let oo kaleeto kadib array name ayaan sheegi doonaa caris waxaynu ku shubi doonaa kadib gaariyaal sab oo kaleeto oo shirkad gaariyaal soo saarto waxaan dhihi doonaa oo kaleeto volva kadib waxaynu kale ku shubi doonaa gaari kaleeto oo lagu magacaabo bmw hadda waxaynu abuurnay array kunu keydsanay gaariyaashan sidee usoo daabacan doonaa arrayda waxaan dhihi doonaa console.log waxay noo soo daabacdaa arraydan magaceedu tahay caris waxaynu soo daabacanay array lengthkiisu uu yahay 3 3dan waxay ka dhigantaa waxaa ku jiro saddex indexka array wuxuu ka bilowdaa 0 1 2 u dhiganto 1 2 3 saddex xaba ayaa noogu jirto haddii aan u baahanahay arraydan inaan qiimo kusoo daro sidee qiimo ugu soo daraa waxaan dhihi doonaa adding array lastigan ayaan ugu soo diri doonaa qaybtan dambo last waxaan dhihi doonaa array name ayaan soo qaadan doonaa oo ah caris kadib dot waxaan dhihi doonaa bush waxaa kusoo dirtaa qiimahan oo kaleeto nooha oo kaleeto kusoo diri doonaa bubul magaciisa oo kaleeto noo ah nooda markaan kusoo darno waxaynu soo daabacan doonaa isla arraydayni waxaan dhihi doonaa inoo soo daabac array oo ah caris hadda waxaynu filaynaa inaan lagu soo daro noo ah bmw gadaasheeda sida ujeediinbu waxaa lagu soo daray noo ah haddii aan u baahanahay inaan ka saaro qiimahan kusoo daray sidee ugu saaraa isla commentigan soo qaadan doonaa waxaan dhihi doonaa removing array last qiimaha ugu dambeeya inaan ka saaro waxaan dhihi doonaa oo keliya caris array name ayaan soo qaadan doonaa kadib waxaan dhihi doonaa bob haddaa aragtid waxyaa laga saari doonaa bush haddaa aragtid waxyaa lagu diri doonaa kadib waxaan dhihi doonaa waxaa inoo soo daabacdaa arrayda magaceeda waxa waa caris hadda waxaa laga saari doonaa noo ah sida ujeediin waxaa laga saaray nooha waa la tuuray waxaa inala soo daabacay saddexdii marka horeeto qiimahan ayaan soo gashanay waxaanu kusoo darnay nooha isla noohada ay ka saarnay waxaan dareemi karaa su-aasha kaa dhex guuxaysa oo ah hadda waxaan ugu soo darnay lastig haddii aan u baahanay inaan ugu soo daro frontig si usoo diri doonaa waxaynu saari doonaa comment si u fahantiin waxaan dhihi doonaa adding front array value qiimo kusoo darno oo kaleeto waxaynu dhihi doonaa waxaynu soo qaadan doonaa array name kadib waxaan dhihi doonaa shift waxay ugu soo dartaa qiimahan oo kaleeto zakasuuka oo kaleeto waxaan dhihi doonaa kadib waxaynu soo daabacdaa array namekeeda markasta waa car halka array soo samaysatay ayaan waxaan ka bedeli doonaa keliya waxaan ku diri doonaa hadda waxaynu kusoo darnay zakasuuka waxaan ugu soo darnay frontiga haddii aan u baahnay sidaan u saari doonaa
waxaan dhihi doonaa isla commentigan waxa u saarayaa inaad fahantiin. taa waxaan dhihi doonaa removing front array value. kadib waxaan dhihi doonaa array name array name markaan dhahno kadib waxaan dhihi doonaa shift. waxaad ka saartaa shift markaan dhahno si default waa function diyaarsan oo ka saaraa qiimaha frontiga. waxaan dhihi doonaa inoo soo daabac. waxaa la soo daabacayaa array namekeedu uu yahay caris. ujeedada hadda waxaan ka saarnay suuqa. waxaynu baranay in array soo gashano. arrayda soo gashana qiimo aan kusoo dari karno lastiga. qiimihii lastig kusoo darnay aynu ka saari karno. sidoo kale inaan qiimo kusoo dari karno frontiga horay. haddii aan frontiga kusoo darnay isla frontiga aynu ka saari karno. su-aasha kala dhex guuxaysa waxay tahay haddii aan u baahanahay inaan kuban daleedgareeyo sidee u daleedgari karaa. waxaan isticmaali doonaa aan comment saarno. waxaan dhihi doonaa removing specific array value. marka horeeto waxaynu samayn doonaa waxaynu daleedgaraynayno ayaanu soo qabsan doonaa positionkooda. positionka soo qaban doonaa waxaan dhihi doonaa let magaca nagu bixi position oo kaleeto nagu bixi equal positionka waxaynu ku shubi doonaa. marka horeeto array name soo qaado dot index of dheh. index of waxay inoo suurtagelinaysaa index of in lagu dhex socdo arrayda lasoo qabto positionkeeda. index of markaan dhahno kadib waxaan dhihi doonaa maxaynu daleedgarin doonaa. tusaale ahaan volvo oo kale daleedgarinayno. volvo ayaanu daleedgarin doonaa islaasi ayaanu soo qaado doonaa. volvo waxaanu kusoo shubnay variable lagu magacaabo position. intaas markaynu waxaynu samaysan doonaa variable kaleeto oo lagu magacaabo remove oonu ku shubi doono waxa la daleedgarinaa. waxaan dhihi doonaa remove variablekan magaca duunta ayaa u baxsan kartaa. kadib waxaan dhihi doonaa remove markaan dhahno waxaynu soo qaban doonaa array namekii. waxaan dhihi doonaa slice markaan dhahno waxaynu u dhiibi doonaa positionkii oo ah waxaanu daleedgarin doono variablekii noo haya. position markaan dhahno waxaanu dhihi doonaa kadib oo ah positionka waxaad ka daleedgaraysaa one kan ku xigo. one kan wuxuu dhigan yahay isla positionka. haddii aad dhahdid two waxaa lala sii daleedgarin doonaa BMW balse one markaan dhahno waxaa la daleedgarin doonaa keliya Volvo. markaanu sameyno arraydan ayaanu soo daabaca doonaa console.log. waxaynu soo daabacdaa array magaciisu yahay car. ujeedada hadda waxaa la daleedgareeyay Volvo. haddii aan meeshan dhiibo two waxaa lala daleedgarin doonaa BMW. kadib waxaan dhihi doonaa inoo soo daabac. ujeedada waxaa lala daleedgareeyay BMW. waxaan filayaa inaan fahanay waxay tahay array iyo sida looga faa'iideysan karo, sida loo abuuri karo, sida qiimo loogu soo dari karo, sida qiimo loogu saari karo, sida loo akhrisan karo. casharkayna maanta intaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa. fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo janaalka subscribe leh sidoo kale asxaabta ugu sheegay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.